صاحب هذا البيج كوع السبتحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. ما أنت وحن قاضنا 10 كسابسان تلابوين يو تلوين كوهبون مركب بيرها سنت لقبو فينيو وتلمامها استعمال كبدبادة له سنت بيرها كو تلابوين كاستعمال كهرية waxaa waajib ah in aadan isticmaalin aafadila iyadoo aan la aqoonsan cudurka dalagga ka muuqda. haddii aafadilaha la adeegsado iyadoo aan la aqoonsanin nooca aafada waxaa ka dhalan kara koow in aafadu aad ugu faafto beerta oo dhan khasaare weynna u geysato dalagga, khasaare kharashka oo bata iyo waqtiga iyo maalka oo dayacma, deegaanka oo wasakhooba. labo marka la ogaado nooca aafada ka hor intaan la soo iibin aafadilaha ama sunta ku dadaal inaadan marnaba isticmaalin aafadilaha beeraha ee kiimikada ah intii suuragal ah. booqo bogga internetka ee wasaaradda beeraha ama hay-adaha u dhigma si aad u ogaato sumaha mamnuuca ah iyo kuwa la ogol yahay. waa inaad hubisaa in kharashka ku baxaya soo iibinta aafadiluhu ka yar yahay khasaaraha la filayo inay u geysato aafadu dalagga. haddii la go'aansado isticmaalka aafadilaha waa in la xadidaa nooca aafadilaha loo baahan yahay, inta looga baahan yahay iyo inta jeer ee lagu celcelinayo. waa inaan aafadilaha la soo iibsanin wax ka badan inta markaa loo baahan yahay wuxuu leeyahay taariikh go'an kadibna wuu dhacayaa ama wuu ka halaabayaa. inta aadan gadan sunta la tasho aqoon-yahan beereed oo waaya arag ah lana wadaag mushkiladda ku haysata. waxaa laga yaabaa in sunta aad raadinayso ayna xal u ahayn mushkiladaada. haddii aad go'aansatid inaad isticmaasho aafadile waxaa waajib ah inaad doorato aafadile organika ah aaminna u ah geedmiroodka iyo caleenleydaba, waana inuu wataa astaanta beeraha organikada ah. ka fogow sumaha kiimikada ah intii suuragal ah. hadday khasab kugu noqotana ka fogow sumaha waqtiga dheer ku jiraya dalagga. calaamadaha organiga kuwan kuu muuqda ayaa ka mid ah. 3 tallaabooyinka ay waajibka tahay in la qaado marka la isticmaalayo aafadilaha. buufinta ka hor si fiican u akhri qoraalka ku qoran weelka aafadilaha dushiisa. weelka sunta dusheeda qoraal ku qoran si fiican u akhri, si sax ahna ugu dhaqan, hana fududaysanin. ha isla qaadin aafadile iyo cuntada dadka ama calafka xoolaha. taa macnaheedu waxa weeyaan cuntada dadku cunaan iyo sunta in isku meel lagu raro oo lagu qaado waa mamnuuc. 3 waxaa waajiba in si fiican loo akhriyo tilmaamaha ku qoran weelka aafadilaha, waana in si sax ah loo isticmaalo inta lagu taliyay in laga isticmaalo aafadilaha. intii mililitir ee lagu yiri ka isticmaal oo kaliya ka isticmaal, waxba ku darin. xiro labiska badbaadada, gacmo gashi, afxir oo kiyaale, kaba daboolan oo dhaadheer. xadiga sunta waxaa loo xisaabinayaa si sax ah oo la hubiyay. waa in la hubiyaa dhammaan xoolaha beerta jooga iyo sanaadiiqda shinnida in ay joogaan yaalaan meel aamin ah oo ka fog halka sunta lagu buufinayo. haanta buufinta marka hore biyaha ku shub, kadibna ku shub qiyaasta sunta ee saxda ah ee ku qoran weelka sunta dushiisa, kadibna biyaha ku dhammaystir haanta. buufinta dhexdeeda waxaa habboon inaan beerta aafadilaha inaad ku buufiso aroorta hore ama casar gaabkii si loo ilaaliyo xasharaadka faa'iidada leh sida shinnida. waxaa waajib ah inaad xirato gacmo gashi, afka iyo sanka waa inaad xirato, waa inaad ookiyaalo qaadato, waa inaad daboolato madaxa, waxaana habboon inaad xirato lebiska loogu talagalay sunta. ha ku isticmaalin sunta meel caruuri joogto ama cunto taalo ama cabitaanba. dabaysha ha ka hortegin, hana cabin sigaar xilliga sunta la buufinayo. ha ku buufin sunta beerta xilliyada hawadu aad u kulushahay, gaar ahaana duhuradii xilliyada dabayluhu dhacayaan ama siigadu jirto amaba roobabku da'ayaan. ha ku afuufin afkaaga tuubada haanta afkeeda haddii ay yara xiranto. ha ku
qasin gacmahaaga aafadilaha buufinta kadib ka daadi wixii ku soo hara haanta si fiicanna uga dhaq si bambadu ayna kaaga halaabin sunta beeruhu nooc walbay ahaato waa khatar ka dheeree meelaha caruurtu gaarto ururi gasacyada iyo weelasha lagu keenay sunta beeraha kuna xirbac kadibna ku rid halka loogu talagalay qashinka jazakumullahu khayran casharkeena maanta intaasuu ku egyahay fadlan haddii aad wax ka faa'iidahay iloobin inaad tiraa subscribe inaad like saartid iyo inaad asxaabta kale la wanaagtid aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu